waxaa maanta si rasmi ah uga furmay degmada Awrbogays shirka gogoshii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu u fidiyay beelaha gobolada bari ee Somaliland kaasi oo loogu magac daray shirka Samatalis. shirka waxaa ka qayb galay in ka badan 200 oo ergey kuwaas oo ay ka mid yihiin salaadiin, siyaasiyiin, cuqaasha, waayeelka, culimaadudiinka, haweenka, dhalinyarada, aqoonyahanka iyo labeenta iyo qoorweynta beelaha Maxamuud Bari, Hinjiile iyo Kaskiqabe kuwaas oo isaga kala yimid deegaanada gobolada Sool, Sanaag iyo Xaysimo. sidoo kale waxaa shirkan ka qayb galay wafdi sare oo ka tirsan xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo ay ka mid yihiin wasiirada madaxtooyada, khayraadka biyaha, warfaafinta, dib u dejinta, wasiiru dawlaha duulista hawada, xildhibaano ka kala tirsan golayaasha guurtida iyo wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland, gudoomiyaha gobolka Maroodijeex, gudoomiyaha gobolka Xaysimo, gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Sanaag iyo 12 maayir degmo oo ka kala tirsan gobolada Xaysimo, Sanaag iyo Sool. shirkan ugu horeyn waxaa furay wakiilka garaadka beelahan Cabdilaahi Garaad Saleebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo sheegay in shirku uu furan yahay. alxamdulillaah ilaahay bay sukaan keenay baa mahad leh waa maalin wanaagsan oo aad iyo aad u micno badan mar haddii dadka inta laga isugu nimi shirkan ay Soomaaliland inoogu timina uu yahay faro arrin aad u micno badan weeye khayr baan idin rajaynaynaa shirkina waa inoo furan yahay Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hoosba hadal leh hadalku maanta wuxuu marayaa furitaan waftiga waa soo dhaweynaa aad iyo aad dad mahadsantihiin geesnimada samaysteen halkan aad loogu timaadeen dadku waxbay sheegaan wax leeyahay lukaas waa dhul fogo lama tagi karo waa dhul rabshadeed talaabada aad qaadeen geesnimada oo idin ka mahadcelinayna waan idin soo dhaweynaa aad iyo aad dad mahadsantihiin. sidoo kale Suldaan Siciid suldaanka beelaha Kaskiqabe ayaa isaguna halkaasi eraya ka jeediyay galaha xukuumadda oo haddan degaamada tan laba degmo siisay haba ii ahaato anigu degaankii aan ku magacaawna oo ku dhashay oo shaxada degmada shaxada laba degmo bixiyey aad baan uga mahad celinayaa. waxaan u sheegayaa diyaar baanu nahay oo dadkan saddexda gobol ku nool u yihiin wax wada qabsi ina wax la wada qabsado oo la wada tashado oo meel la wada maro diyaar baa leedin yahay. waxaa iyaguna shirkaasi Samatalis ka hadlay cuqaalaad u tiro badan kuwaasi oo dhammaantoodba cadeeyay in ay aqbaleen gogoshii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu u fidiyay beelaha dhulbahante sida ay sheegeen. shirka maantuna uu daaha ka faydayo sida ay diyaarka ugu yihiin in ay wax la qabsadaan walaalahooda reer Somaliland iyagoo mahadnaq ballaadhana u jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ay uga mahad celiyeen shirkan iyo gogoshii uu fidiyay. sheegaya haddaanu nahay dadweynaha ka kooban 12 degmo ee saddexda gobol Sool, Sanaag iyo Xaysimo inaanu diyaar u nahay inaanu wada hadal rasmi ah aanu idin la furo hadii aanu ku soo biiray Somaliland waxa way 24 sano wixii socon waayay baanu annana socodsiinaynaa hadii aanu helno xuquuqdaanu leenahay. shirka Samatalis ayaa ugu horeyn dhinaca xukuumadda Somaliland waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Baasha Cali Jaamac oo hormuudka ahaa hirgelinta shirkan taariikhiga ah oo taageero buuxda ka haysta beelaha Sanaag, Sool iyo Xaysimo iyo guud ahaanba dadka Somaliland. waxaana wasiirka khayraadka biyaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Baasha Cali Jaamac uu tilmaamay in shirkani uu fursad weyn u yahay beelaha gobolada Somaliland iyo dawladda Somalilandba si labada dhinacba ay miiska u saaraan baahiyaha labada geesood ka jira iyo waliba iskaashi buuxa oo la qaato. shirkan innaguna inaynu xiiso qabnay dawladda Somaliland ay u xiiso qabtay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo gogoshan dhigay oo gobol badan oo la dhigay oo mar waxay oran jireen qolada dhulbaanka gogosha madaxweynaha horta halkay taala masabada taala gogosha madaxweynaha uu dhigay samada ma taala Awrbogays bay taala. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Mudane Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani ayaa isaguna ku dheeraaday muhiimadda ay deegaanadan iyo beelaha degaaba u leeyihiin Jamhuuriyadda Somaliland iyo sidoo kale sida ay xukuumadda siyaasad ahaan uga go'an tahay in ay baahiyaha asaasiga ah iyo xuquuqda dadkani ay leeyihiin intaba la sugo. wuxuu socdaalka iyagu anagu daarayay waa mid qura oo ku salaysan yahay abtiya waxa weeye waajibkii aad jiibteen gogoshii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee uu fidiyay muddo dheer. maxaa ku dhacday?
shirka hada shirteen ayaa waxa weeye ayuu maxaa ku dhaadaaray maanta waxa weeye indhaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan indhaheedu waxay soo eegayaan waxa weeye waa Orbox waxaanuna ay eegayaan oo ay gidigood ay eegayaan arrintaas sida u dhici doonto waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu mid khayr leh oo wanaag ku jiro oo wada noolaasho ku jiro oo wada xad qabashada ku jirto oo wada dhalashada ku jirto inta bay Ilaahay nooga dhigayaan horta markuu horeysa Ilaahay ka baryayaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo wafdigan ka yimi magaalada Hargeysa isagoo hogaaminayay ayaa khudbad dheer ka jeediyay shirka Samatalis waxaana uu ku amaanay madax dhaqameedka waxgaradka haweenka dhalinyarada cuqaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada guud ahaan gobolada Sool Sanaag Xaysimo iyo gaar ahaanba degmada Awrbogays ee shirkan martigelisay sida ay u soo dhaweeyeen wufuudan iyo waliba qabanqaabada shirkan isagoo si gaarana u tilmaamay sida ay taariikh ugu leeyihiin beelaha deegaanada goboladan degaa siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo siyaasadda guud ahaan dhulka Soomaalida waxaan jecelahay in aan idin guddoonsiiyo salaan aan idinka sido madaxweynaha Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siiraayo oo aanu si rasmi ah uga wakiilnahay halkanna muxuu ahaa gogashii nabadda ee uu dhigay shirkani qayb ka mid uu yahay walaalayaal sharaf weyn bay noo tahay inaanu idiin nimaadno shirkan idinkala soo qayb galno waa shir taariikhi ah waa shir miisaan weyn leh oo ay isugu yimaadeen beelaha laxaadka leh ee deegaanka ballaaran ka soo jeeda waxaa ka muuqata tala ka dambaysa oo maanta reerka beelaha miisaanka lihi inaanay u dambayn sidoo kale xukuumadda Soomaalilandna waxay u aragtaa uu u qiimaysan yahay shirkan uu u qiimaysan yahay annagana tala nooga dambaysa ma jirto waxaan u aragnaa muxuu ahaa shirkani inuu yahay kii aynu ku wada tashan lahayn shirkan ujeeddada aynu ka leenahay waxa weeye inaynu ku wada tashanno in aynu turxaansaar ku samayno in aynu ku abuurno iskaashi ku xoojino iskaashi iyo wax wada qabsi iyo wada shaqayn waxaanu doonaynaa inaynu wax wada yeelo inaynu cad wada guulno ma socon karto in muxuu ahaayey qarannimada Soomaaliland laguma meel marin karo haddaydaan nala wadin oo aydaan gaadhiga shirkiisa nala fuulin oo dushiisa nala fuulin oo nala hagin oo dil iyo dareen walba aydaan ka noqon Soomaaliland dee ka shaqayn mayso dhulkan Soomaaliland oo qaybsano qaybino barwaaqa tahay ama maamul ka jiro ama nabadi ka jirto qaybina qasan tahayna dal ma noqon karto khibradeedii waayaragnimadeedana waanu leenahay idinkuna waa leeyihiin waxaan doonaynaa dal Soomaaliland la yaaho oo nabada oo dhul oo horumar laga hirgeliyo dhulkan oo dowladnimo laga hirgeliyo taama oo aad qayb ka tihiin oo taladiisa wax ku leeyihiin oo miiska wax lagu goynayo aad fadhidaan ayaanu doonaynaa waana sida sax ah walaalayaal xeerada haddaan nagu tuumayseen inaanu wax tuurta ku sidanay dhulkaanu dhigaynaa nala wadaaga gacanta nala geliya nala qaybiya oo nala qorsheeya taasi waa sida keliya ee aynu ku noqon karno ummad midaysan waxna ku wadaagtaa